hablaha tayada gobolka saaxil dheemanluula gudoomiyaha hay'adda quality control-ka gudoomiyihii iyo maamul ku-xigeenka customs-ka halkaan waxa ku dhan madaxda heer gobol iyo heer qaran sidoo kale madaxda heer gobol iyo heer qaran ilaa gudoomiyuhu horeeya maraya warwaaninkii Muxyidiin oo sheekeynaya sidwaayay Cabdi Fataax aha magaashu waa berbera dekadii hawl maalmeedkii sida ahaydba gudoomiyaha halkaas soo fadhiweyn hablihii qaranka alla maxay habluhu qaranka hawl adag u hayaan ilaahay iska daa halkaan inamada baarayaasha ka muuqday ilaa askariga baan wadanaa markabkaasna waanu baadhaynay maxaan shaqa adag dadka iyo dadkaba u haynaa ilaahay uu nagu astur heegan baan ugu jirnaa hadaan rag iyo haweenba nahay halkaasna waa fooqii dhibi wal midooba iyadoo xafiis ku leen wax xisaabiyahaygii gobolka Ibrahim iyo dhammaan baarayaashii gobolka وينمدي سامبلينك محمود اسكبره sidoo kale wiilka Sambalinka Mustafa kadalika halkaan waxa ka muuqda habane sidoo kale gudoomiyahaygii saabiyihii waa sidoo ku xigeenkii waa maamulihii warda waa lagu dhan yahay meesha mid iyo laba kama gaari kara halkaan khadar baan ka arkaa waa laabihii la baadhayay iyagoo u yimiday inay nagala qayb galaan ama hawsha soo socoto ay arkaan maamulka heer qaran ilaa heer degmo aan wada soconay warwaadikadii marka wax la baarayo maadaama imika laabkii bilaabmay waxa la doonayaa hawshii laabka in la dardar geliyo oo halka maadaama laabkii cuntada uu inoo bilaabmay oo doonayna inaan cuntooyinkii baadhno dawooyinkii la baadho inaynu shaqada de halkay ka socoto waa gobolka saaxil laabkii inoogu yaalo de madaxda qaranka iyo dawladda baa la shaqeeyo oo shacabka iyo ganacsatada la hadlaya raashinka iska ogolaada inaanu bidin baadhno wax tayo leedin soo saarno waa darkaysan baan ku wada koontarnadii oo furan halkaan cala kooreynayno shaqada saano u wadno da iska daawada bilicda gobolkana waa iyaga iyo haay war salaamu alaykum ala sheer